بدل القلتات وأهل التحيين أفضل تنبيه الشيء لحد يبقوا هي طبعا المغني لكن سدولته قد كيعي لحيد رسيس هذا المرضى النسية طريق هو فرية والسياباء يتصف حوالي تغلق القلتات أمام الحقيقة كاها نسيئين واحدة الليل عميقة لا يبقى كاسين لا يبقى كاسين لا أول فمقا يحقوق وقره يحقوق عليه يا الله ما يساسي الله يوانا يا عساسي يا فتح سوماليا هو المقدس جلداك هو مقدس لكن هو طلقرن هو ليه ويا انت سوف شو كبيريا عاد بان مبادئين سير في عالم وبجيستين تبتارك الريق والجنة فريان وكفر أحسن هايتها لكن أنت يا كلا حاجة معمول برضه إحنا قالوا لي هو دين حج سنة سايوتها معايا إذا أنا مرتا وحوي تمشلين اللي قالوا لي لكن وحكوا برتاي إني دلك aynu la mid noqono oo aynu degmooyinka dalka laga bixiyay inaynu inagu ka mid noqono qaybteena qaadano iyadoo u qalanta quljeed maadaama aanu ahay magaaladii ay markii hore hoos imanaysay waxaan ku faraxsanahay oo aan aad uga mahad celinayaa sidii wanaagsaneyd ee ayeen waxaan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin sida hadda laydinka rabo inaad u shaqaysaanna maamulka cusub ee hadda jooga waa kii anugu halkan aan u magacaabay gudoomiyaha tuulada horta halkan aniga mid baa ii taala qolo beri hore aanu wada hadalnay oo markii suldaanka jibriil yuusga la dooranayay aanu hoos ku wada hadalnayna hawl baa noo wada taala hawsha noo wada taali waxa weeye degmada quljeed sidii dawladeedii hoose maanta maalintaan ka hadlaynay baa la joogaayo inaanu maanta anagoo wada soconno dhagaxa dhigno wixii kala qaybsanaa noo taala oo suldaankuna ka madaxiyay xukuumaddana mid baa u taalo oo agabkii dawladnimo ee degma lahayd oo ay wasiirku ka kow yahayna waxa u yaalla iyo xildhibaanada qaranku inaynu marka inan ama la munaasib bixinayo wixii baa la kala sheegaayo ridaa casay adigaa le kaa kala adigaa le baa laydhaa maanta waynu kala sheegaynaa waxaynu odhanaynaa intaanu leenahay waanu ka qaadanayna intaan la kala leeyahay inta quljeed leedahayna waynu isku sheegaynaa maantaynu isku sheegaynaa waxaa ii farxada horta runtii sidaa aynu imikaba hadalku aan u dhignay maalintaynu rays fadhina waxaynu ku ballannay dee horta tuulooyinku inta badan xarun dawlado hoose ma leh laakiin maalintii aynu hadal haynay suldaanku suldaan abubakar oo naga maqnaa maraykan buu joogay laakiin odayada jibriil yoonis ee goynaya arrinta suldaanka ayaa nala joogay maalintii waxbaanu kala qaadanaa waxaanu nidhi annagu dhagaxana waanu dhigaynaa sayskana waanu ku ridaynaa dee maalintii maanta ahayd oo degmadeedii maanta lagu dhawaaqa yaa aanu wareejinaynaa maadaama aanu wareejinayno waynu israacaynaayo horta meeshii dawladda hoose aynu dhagaxa dhigaynaa kow waynu kala qaadanaynaa laba sida loo kala qaadanayo midda kale waxaan leeyahay buljeedna mid baan leeyahay dee qoladan xukuumaddana oo aniga mid oo agabkii kale iyo wixii baa looga baahanyay baa leeyahay buljeedna mid baan leeyahay waxaan leeyahay adeer meeshani horta haddii dawladda degmada boorame ay degmada quljeed ayna si fiican u baritaalayn iyo haddii ay wax la qabsanaysayba anoo aad idinka mahad celinaya warshaqaynteennii dheerayd waxaan leeyahay maanta quljeedna mid baa looga fadhiyaa midda looga fadhiyayna waxa weeye
cashuur baa laydinka fadhiyaa cashuurtaasi haddaad bixin weydaan maanta waxaan idinku wareejinayaa shaqaalihii quljeed ku qornaayoo 5 qofa oo ay ka kow yihiin iskoolkan aynu joogno waashmaanada labada ah ee jooga maanta wixii ka dambeeya waan idinku soo wareejinayaa idinkay idinku soo wareegayaan wixii yaraa la siinay idinkaa laydinka rabaa 3 shaqaale ah oo kaloo dawladda hoose oo jooga baxayadana quljeedda idinkay idinku soo wareegayaan degmo kasta oo cusubi 5 kilomitir ayay soo dhaafaysaa xarunta laga magacaabay macnihii 5 kilomitir wixii xaggaa boorama iga xiga markaad 5 kilomitir soo socotiin wixii dhankaa ka xiga sharcigu waxa weeye ayaad ka soo noqonaysaa innaga 5 kilomitir baad xaggayga u soo dhaqaaqaysiin wixii cashuura iyo nidaamana yacni sharciga baa la raaciyo waa la ilaalin kastoo xudayntii cashuur degmooyinka ay iska kooban yihiin waxaan leeyahay ilaahay khayrka ayna waafajiyo sanadkiisana bashbashiyo barwaaqa ilaahay nagu gaarsiiyo aynu isku ducayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib meesha hadal badani ma hadhin maanta waxaan bulshada u sheegaynaa reer quljeed maanta annaga haddaanu nahay maamulkii degmada waxaan u malaynayaa inaan annagu ugu farxad badannahay waayo waalidka iyo ilmuhu marka uu taabo galo iyo waalidka waxa farxad badan waalidka annagu waxaan nahay waalidkii quljeed maadaamaan nahay mas-uuliyiintii degmada boorame quljeedna waa ilmahayagii oo maanta taabo galay oo gaar u istaagtay maanta annaga cid naga farxad badan ma jirto intaa kadib waxa weeyaan maanta halkan waxaan u nimid inaan wixii waalid lagu lahaa ee miraas bixin ahaa inaannu degmadii quljeed miraas bixinnaannu u nimid miraas bixintuna waa labo midna waa mid dhaqaale iyo maaragtaa siyaasadeed midna waa mid farsamo inta dhaqaalaha waxaan u daynayaa duqa oo odaygaa dareerkaanba bixiya tii farsamona maadaamaan ahayn xogayii degmada anigu waxaan u imid inaan intii farsamayd inaanba bixiyo waxa weeyaan degmada quljeed sida loo sheegay resource bay leedahay resourcekeega waxaa ugu horreeya beero waxaannu idin haynaa diwaankii beeraha waannu idinku wareejinaynaa intaa kadib waxa weeyaan waxaannu idin tilmaamaynaa weliba halka dhaqaalaha aad ka bilaabaysaan sanadkan waxaannu maaragtaa soo dallacnay cashuurihii 5 sannadood baannu beerihii ku dallacnay idinkana waxaa laydinka rabaa inaad dhaqaalaha halkaa ka birtaado beeraha cashuurta aad ka raadisaan beeraha cashuur baad ku leedihiin waayo dhaqaala la'aan waxba ma wadi kartaan waxaa laydinka doonayaa mishaar waxaa laydinka doonayaa inaad magaalada u samaysaan maaragtaa service ama inaad maaragtaa adeeg u samaysaan nadaafadeedii inaad ka shaqaysaan nabadgelyadeedii inaad ka shaqaysaan shaqaalihii maanta halka joogana siduu ibraahim idinku sheegay xilkeegii iyo mas-uuliyaddeedu idinku idin fuulaya mishaarkooga inaad raadisaan baa la doonayaa sidaad mishaarka ku helaysaanna waa inaad cashuurihii bilaabataan idinkoo madax bannaan oo aad maaragtaa u howlgashaan wax badan oo kale idin odhan maayo cadceed baa taagantihiin wakhtiguna aad buu cidhiidhi u yahay waxa weeyaan maanta waajibaadkii aad xukuumadda ku lahaydeen ee ahayd inay degmadiinnii laydin magacaabo si sharciya waad hesheen annaga degma ahaanna inaan xuduuddiinnii iyo wixii aannu idiin haynay idinku miraas bixinnana waad heshaan inaad degma sii noqotaan sa idinkay idinku xidhan tahay sidaad uga howlgalaysaan oday iyo dhallinyar iyo haween iyo maamulba idinkaa laydinka fadhiyaa inaad ku soo noqotaan tuuladii degmada boorama maamulaysay iyo inaad degma noqotaanna gacantiinay ku xidhan tahay wixii alla wixii aan annagu idiin haynana diyaar baannu idiinna wasalaamu calaykum waraxmatullahi oo isla ku sii dawayn doono wasiirka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسيرك الدبتشنتا iyo waftiga kale ee ballaaran ee salaadiinta madaxda heer degmo heer gobol iyo dhaqanka kala gedisan munaasabadda fadhiya iyo dhammaanba bahweynta degmada quljeed ee halkan isugu timiday
waxaan horta idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta ninka maanta wax lagala wareegayay baa aniga isagoo wax lagala wareegay halka ka tegey dadka halkan iskugu yimi ee kala gedisan noocay doonaanba ha ahaadaane ee ku faraxsan degmadan cusub iyo degmada Gujeed waxay ka mid noqotay gobolka Awdal degmooyinka ku soo kordhay ee muddada dambe la magacaabay degmada Gujeed waxa la magacaabay 14 bishii 6 2010 degmada Gujeed waxaa jira degmooyin kale oo ka mid yihiin boon xariirad galbadadar oo sanadii Awdal ka mid ah waxa looga baahan yahay inay tartan gasho xil weyn baa maanta soo saarnay dadka reer Gujeed waxaan ku dardaarayaa inay bixiyaan cashuurta dawladda looga baahan yahay degmo waxay wax ku noqon kartaa marka ay bixiso cashuurteeda ama ay horumar ku gaaraysaa haddiise la bixin waayo cashuurta tartan baa jiri doona degmooyinka iyo gobollada ah degmadii soo bixi weyda waxaa lagala noqonayaa degmanimada taa waxaan ku dardaarayaa reer Gujeed ta kale waxay ka dhawaajiyeen guddoomiyaha degmada cusub inuu u baahan yahay ciidan nabadgelyo waanu gudbinaynaa wixii baahiya ah ay degmadu u baahan tahay waxaanu gudbinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba waxaan jeclahay in laga soo jawaabi doono wax badanna looga qaban doono ta laga hadlay u badan xagga macaawanada xafiiska madaxtooyada way soo gaadhaa gobolka Awdal macaawanada xafiiska madaxtooyada annagaa marag furayna hase yeeshee baahida waxa daboola ilaahay baa daboola ilaahay waxa weydiisanaynaa inuu dadka roob siiyo roob wanaagsan u liso ay kaga baahi baxaan gacanta bini'aadanka waxaan leeyahay Gujeed xil weyn baa na saaray xilka ka soo baxa iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa soo xafladda inoogu xiro wasiirka dibudejinta usoo dhaw saacadda rasuul بسم الله الرحمن الرحيم أنا بتوفيها بسمع بتوفيها معمر كوكب الكاودل مقام مجالدا حقيقة تورته وسي خليها قيمتها يحلمنا